barnaamijkan maamul wanaagga ama good governance la yiraahdo waa barnaamij socon doona oo noqon doona taxane wuxuuna barnaamijkan ku saleysan yahay cilmi baarid dheeraad oo aan muddo soo wadnay oo qaabka dhaqaalaheeda miisaaniyadeeda siyaasadeeda iyo waxaheeda kala duwanba u shaqeeya marka tan waxay cadaan tahay miisaaniyada qaabka loo qorsheeyo kharash la filaan uma baahna wasaaradda madaxtooyada waxa ugu jirta kharash la filaan iyada gartayo waxyaabo dhici kara amni darro dhici karta dagaal dhici kara salaadiin waxba buuqi kara cid uun bala kala dejinaya laakiin wasaaradda maaliyadda kharash la filaan maxay u baahan iyo kala dejinaysa adeega qabatana waa service waxeediyo ma production waxa ma saarto waa service waxay ahayd in wasaaradda beeraha loogu daray inta ay ka badan si marka ay waxaan guudaraystaan ayadu uga kabato oo aanu wax soo saarkeen inagu beeyntay waxyaabaha kale ku jira wax kamid ah miisaaniyada ee aan aadka wala yaabay wax kamid ah kharash la yiraahdo kharashka Stefanders miisaaniyada 2018 wuxuu ku jiray kharashka Stefanders inta qows la furay ee 5 times la qoray waxa la qoray kharashka Stefanders 5 times phase 1 inta la qoray waxa loo xiyay ma garan haduu dan yahay waxa diinta caadiga la gulmay diinta caadiga diinta Stefan Darson balaska qoray lacagna wala Darska 1 bilyan iyo 200 milyan lacag $100 meel hagaas ayaa lagu qoray oo 5 times la waliba laba kusteed masaas u qornaa imika 2019 wuxuu qornaa kharashka dubinta diinta iyo waxnaas ayaa loo bedelay Stefan Darson buugi ay soo saareen madaxyada madaxweynaha ku sharxayna kuma jiro ugu jira diinta raagtay wax qoreen خرج بنت ديت راكتي صدق waxoodo kala duwan baa ku qoran ديت راكتي ما قرني waxa loo xiyay baalkaas waa kharashka Steve of English xita kharashka Stefanders 5 times phase 1 ma alla meel ku baxo ma qarnay waxa kale oo xeerku u jideynaya in la sameeyo in hay'adaha madax banaan miisaaniyadooda la faqahan u soo daraan u soo raaceen miisaaniyada qaranka sida madax banaan sida dawladaha hoose wakaaladaha biyaha banka waxaas sharci wuxuu leeyahay iyagoo lifaaqan hal arko waa in lifaaq ahaan ku soo raacayaan hay'adahaasi sax lama arkade ma jiro miisaaniyada bank ma aragtay kuma lifaaq weli ma arkin wasaar xitaa hay'adaha kale xitaa wakaalada biyaha iyo ka balsiya wakaalada biyaha كبيس كم لفاقنا هذا هذا ما جتوا ميزانية لما هيو دولة هوسة كبيس دولة هوسة لما سيب وحنا مقولية دولة هوسة بربرين ليه ده بقولية شني لحن بقولية شني لحن بليون والعكس ضبيط هون مليون وجالسة أيها وقرن سنة يوجد بيسي أول هذا واحد ده جاركا لكن تضبيط هون كام مليون بانكو يمسوا كله وكالة بيهين مثال لا هاي لما كلا قرني يصير كليه دولة هوسة نيبنوا بقى روح ودي يبغى يقول لفاقنا كل شيء ما نسوي دي ولا سويدية ما لا عقل صار كمرتها ولا سويدية بانكي يو وكالة بيها أي نكحس كرنا يها إذا كان السر صح واحد كلو شراء واحد خرج كمرتقادية مناسبة هايد كستود دولة وكشرا وحنا مرينا قريقات كودنا وكشرا يعد كلو ما هذا يعد كلو طبعا ما صدق فرق أو دور يعني هيدود بالغيا من وكشرا لكن بدنا كود وكشرا وحيا مهلا وكشرا حكي بذا حفيز كا عيدك هذا محتوى مرتقادية وجه وحجرا صباح اللي راحوا خرج كمرتقادية مناسبة إلى هذا عندك إلى هذا محتوى ما محتوى ترسلين يسوق محفل يخرج كلا خرج كمناسبة لأنه بدك وير شرحنا كلمة الصبح يو هركا مدحيين الصبح راح نقول كذا مدحيين ما كان مرة قالوا يجيبوا بيا هذا
madaxigeenka la yiraahdo kharashka martiqaadyada iyo munaasabadaha wuxuu ugu jiraa waan ku wari meel kasta madaxigeenkan wuxuu ka mid yahay miisaaniyadda sar loo sameeyo madaxa waxa la siiyaa hay'adda madaxigeenkuna waa wixii ka sii farcamayada saahan kale golaha guurtida madaxeedu waa madax number buu leeyahay madaxigeenka lacagta ugu jirta madaxigeenkuna lacagtii baa lagu sii jibinaya qaybinaya si dadku inoo fahmaan waa saxbi ciidanka ilaalada maxkamada waxa ugu jira madaxigeenkaas ugu jira la yiraahdo munaasabadaha martiqaadyada ama ma garanay wax ku filan meel walba ugu jira wadankii munaasabadaha martiqaadyada ama ma garanay waxa kale oo jira iyaduna guddiga doorashooyinka 2018 waxa ugu jirtay lacag badan 3 milyan bad lacag ah hadana 4 milyan ku dhawey 8 bilyan iyo 800 oo milyan baa 2018 maxay qabteen doorasho qabteen diiwaangelina ma qaban 2019 ugu jirta lacagtaas dollar ahaan markan u bedelana waa lacag gaaraysa 7 milyan iyo 500 laba sanad isku darto inta gaaraysa wey diiwaangelina ma qaban guddiga doorashooyinku 7 milyan iyo 500 dollar bay noqonaysaa laba sano laba sano isku daray lacagahaasna meel ay marto lama garanayo waxa kaloo jira iyaduna guddidii la jiray guddida furashada ururada urur la furo waxay nagu dumisay 2012 ama guddida diiwaangelinta ururada ama guddida diiwaangelinta ururada 2000 iyo 2012 nagu dumisay urur la furay waxyaabo yar ka garnaqeen oo xisbiyada dhexdooda way dhacday sanad kasta miisaaniyad gooni leeyahay laga soo bilaabo 2012 ilaa maanta 2018 lacag 300 dollar ka badan baa ku jirtay shaqadoodina waxay ku ekayd markii ururada la furinayo dhamaatay haddii xitaa la yiraahdo oo dadka domeey dadka qaar ay ku doodaan ay yiraahdaan waxa looga baahan yahay kala saarista markay isqabsaan xisbiyadu guddidii waxa joogtay ma waxba ma waa la soo yeeri karaa guddi bay noqon karaan la soo yeeran maalintaan kharashkeeda laga bixiyo wasaaradda maaliyadda ama madaxtooyada ma inay xafiis dhan lahaadaan oo intaasoo lacag ku socoto sanad kasta laga qaaday dadka masaakiinta anu ila maaha xafiiskaas uma baahnimba haddii xitaa laga maarmi waayo lacag yar oo farsamo yara wasaaradda maaliyadda loo dhexdhigi karaya waxa kaloo ka mid ah dhismayaasha museumka maalin madaxweyne wuxuu dhagax dhigayay museumkii Hargeysa oo meeshan la leeyahay wax lagu kaydinayo taariikhda Soomaaliland museumka Saryan soo moogid in laga bixiyay kharashka dawladda inuu ku jiray miisaaniyadda dawladda 2 sano inuu ku jiray yaa imka leh dawladda leh ama dawladda leh shacab sanadkan hadaba 2019 waxa ugu jira museumka Berbera dhismaha museumka Berbera meel la dhisay ma garanayo إلا ما هلا كسين اللسي خرجك موسيوم اسمها بربرة أي وجرة ما نعرف اسمها اللسي أنا ما مقال لكن اسمنا اللي هو اللسي هدير اللسنة عيد شعب عليه وحال الله وحنا ترى أنا مشت كم سوكي ده كم هرجيسوا صوتنا عيد له قف باله صح ما أنت سوا وحيابها ديانة الميزانية يوم سواء حتى يسيب النوع إنه هلنا قارك سيبان تصالح dadku wax karaan hadaba marka miisaanada la sameeyo dadkeen miisaanada ma arkaan ba in dhowr qof baa jiro oo gala website-ka baarlamaanka oo ka soo kala soo tagaa waxay ahayd maanta dhaweeyay odageed sanad baa markii soo wareegtay dawladda Mosambiki waxa qabadkii sanadka xafiis kasta waa la geenay kartoonada lagu sido buuga khawaatka waxay miisaanada la geeyo iyadoo kartoon lagu sido oo xisaabka la geeyo iyadoo kartoon lagu sido dadku ay meel walba ku haystaan miisaaniyadooda arkaan oo loo daabaco oo loo faafiyo taasay laakiin dadku ma arkaan ba tusaalayaasha waxaan soo qaadnay dadku inay yar baraarugaan eegaan miisaaniyadooda meelaha wax ku jiraan meelaha wax loo sida loo geliyo marka dadku is weydiiyaan maxaa meelahaas looga baahan yahay ay tilmaanay meelaha ay ka sii badan ay jiraba miisaaniyada marka la sameeyo waxaad ogaataa wasaaradda maaliyaddu iyada sameysay Soomaaliya miisaaniyada iyada la dooday Soomaaliya hay'adii dawladda oo dhan iyada yaa la dooday iyada yaa su'aal weydiiyay halkan maxaad agtan u gelisay inda hadii la yiraahdo waa la doodayo gudidan baarlamaanka gudidan wasiirada golaha wasiirada gudida sameynta miisaaniyada hadii la dooday ay kuwaas la dooday soo ka jiray ma miisaaniyada khalansanay
anu wasaaradda maaliyadda cid alla cid la dooday markan inta ka shaqeynay wasaaradda maaliyaddana meel lagu dooday ma garanayo oo la yiri miisaaniyadda ansixinaysaane aad ku darsateen qaranku ma aha mid macquul marka taa macnaheedu waxa weeyaan wasaaradda maaliyaddu qaabka ay rabto iyadu unba u soo dhiganaysaa miisaaniyaddeeda ama dadka dan ha u haado ama iyada dan ha u haado siday rabto unba u soo gashanaysaa iyadu dan yahay kaligeed buu dan waana ku tiray wixii kharash jiray meesha xafiis xisaabta wala intaas masna xisaab tusaalena waxayna kolba wasiirka yimaada sida imka aad u soo qaadanaysay qolada xisaabiyaasha ururka xisaabiyaasha kale kolba wasiirka yimaada qolo sameeya inta halkaas miisaaniyadiisa gashanaya sidoo rabana uu yeelaya ama isaga waxa qaatay jeebkiisa ku dhacdo ama meel kale ku dhacdo sidoo tagale marka doodu socoto in wasiirku qayb galay dooda anu wasiirka maayadu inuu joogo dooda waan jeclaa dema joogo laakiin ma tago imka doctor Saad baa waxa rajaynayaa inuu maalin tigin hal maalin uu fariistay dood meel wada doodiyo hay'adaha dawladda miisaaniyadooda inuu fariistay ma talabaad waxyaabada wax jira lacag badan baa jiro aan lagu darin aan ka muuqan miisaaniyadda sanaadka berbero kale imka 2017 sanadka gabigiisaba DBO baa haysay gacanta ku haysay baarlamaanku waa inuu yiraahdaa hal kan xisaabkii 2017 DBO hal 2018 DBO صح lahaas iyada kharash iyada gacanta ku haysay lacagteena berbera yaa ma lacag baa soo baxday sadafis baa galay oo waxa yaraatay dakhli lama garanayo cid garan karta ma jirto miisaaniyaddan ku jirto ka muuqato waati mas'uuliyadii dalka aad u dayacan baa ka muuqata doctor Saad waati la weydiin jiray wala weydiyo kuma jirto waatana ka muuqata labadii miisaaniyada ugu dambeeyay waa kuwan meeska dusha kuma jirto marka miisaaniyadda la sameeyo waatan aynu leeyahay waxa wasiirka qaado golaha wasiirada horgeeya golaha wasiiradu waa ansixiyaan baarlamaanka loo gudbiyaa baarlamaanka waa ansixiyaa marka ansixinta baarlamaanka iyo dastuurka ka sheekeeya qodobka sheekotanaad iyo xeerkii ka sheeganaya xeerka maamulka maaliyadda Soomaaliland ay ka shaqeeya marka waa ansixiyaa wakaalada wax banaana in miisaaniyadda lagu la faaqay hayd la ansixiyo laakiin ma markayno waxaan eegi doonaa hadaba sida loo fuliyaa kharashka miisaaniyadda miisaaniyadda laba dhinac dakhli iyo kharash صح سيد دخل لو صوريا waxaynu ka soo baxno aynu aragnay inaan horta siyaasad lagu sameeyo aan jirin miisaaniyadda sidoo kale waxaynu aragnay qaabka ay miisaaniyaddu u samaysan tahay heerarka ku jira marka ama madaxda ku jira qaarkood inaan muhiim ahayn baynu aragnay inaba tusaalayaal fara badan soo qaadanay wal haddana xasii sharxo sharmaarke oo hawsi gudagalo qaabka hadaba loo fuliyo fulinteediisa u dhacdo fulinteeda saan rajeynaya laba qaybood ka kooban doonta taas sharxi doonto oo ah dakhli ururintii iyo dakhligii la qoondeeyo la bixiyo xarana bixintii kharashkii la qoondeeyo la bixiyo orda dakhli in dakhli ururiya waxay caqabad ma hortaagan dadku ma garanayaan muwaadiniintu ma garanayaan habka cashuurta maanta ma garanaysid cashuurta ku waajibtaada aad gurdhisanayso waa tagaysaa xafiis waa lacag malaga shubaya inta lagu raakeen rasiilka hadii lagu qoraabad wanaagsan tahay rasiilka lagu qoro ma bixinaysa dadku waa in la baraa cashuurta ay bixinayaan ku waajibtay qof maanta gaariisado maanta uu gurdhisanayo maanta uu alaab la soo dagayo waa in qof kasta garanaya cashuurta ku waajibtay ma jiraan waxa kale oo jira ajaanib badan baa wadanka ka shaqeeya waa cashuur la qaadaya barigaan ka shaqeyn jiray waan ka jiray ajaanib cashuur dhaaf loo sameeyo waa lacag cashuur laga qaaday waxa jira ganacsato cashuur dhaaf loo sameeyo tusaale ahaan kale dad sheegtay inay dekada berber soo dejinayaan alaabta burcaada oo dad lagu taageerayo hadhow leebiyo cashuur dhaaf kala sameeynaya waa in la hubiyaa cashuur dhaaf cid walba waa in la siiyaa waa sax shirkadaha ganacsiga waa in laga qaado cashuurtii ku waajibtay shaqaalahooda iyaga ninka bakhaar haysta waa laga qaado qofka uu shaqaale siiyo lacagtii isaga waa laga qaado lacagtiisa cashuurtii ku waajibtay maash markuu sanadku xidhmo waxaasun hadda waxaan doonaya in dadka yar sheegno in 2019 bishii koowaad ilaa bishii shanaad dakhligii la rajeynayay hoos buu dhacay dakhligii la saadaaliyay inuu soo galaa wuxuu ahaa 760 bilyan oo shilin waxaana soo galay 693 bilyan boqolkiiba 9 bay hoos u dhacday dakhligii aan rajeynay inuu soo galo 5 bilood wadaadkiisa wasiirkuna maalin dhaweyd wuxuu dhiirigelinayay shaqaalaha wasaaradda maaliyadda qaybaha soo ururiya cashuuraha isagoo dakhligii hoos u dhacay oo shahaadooyin siinay cashuuraha bariga kastamada saan waliba maqlay kastamadu fiicnaan cashuuraha bariga ayaan fiicnaan
soo ka arkimis hoos u dhacday hoos u dhac baa jiray badan inkastoo 2009 ay ka fiican tahay 2008 ay ka fiican tahay haddana intii lagu talagalay 5 bilood hoos u dhacday hoos u dhac baa ay ku yimid waxa kale oo iyadana muhiim ah in la isweydiiyo maxay ku baxdaa cashuurtan lacagta loo jaro gobolada bariga 2% kaasi waa muhiim in la isweydiiyo ku mara ku baxaa maxaa loo qabtaa gobolada bariga waxa kale oo jira 2017 shaqaalaha dawladda u shaqeeya waxa 8,600 qof meelaha imika 2019 20,380 oo warbixinay soo saareen wasaaradda maaliyadda intaas kordhay arkimis inta kordhay marka shaqaalaha soo kordhay goorma la shaqaaleysiiyey halkay ka yimaadeen goorma la shaaciyey wasaaradee baa lagu kala qoray yaa imtixaan ka qaaday qof baan garanayaan iyo lagu baahiyey dee baraha bulshada iyo website oo goboladan loo qeybiyey inta kale ma garanayno meel lagu waxa kaloo jira haddaba aynu gal labale kharash bixinta si kharash loo bixiyo oo waxyaabaha ka qadanaamahayn dakhli ururinta imikana kharash ururinta kharash bixinta waxa jira voucher kasta wasaaradaha maaliyadda wasaaradaha dawladdu wasiirku saxiix kuma laha voucherka marka kharash la siideynayo wasiirku saxiix kuma laha hal wasaarad baan ka saxiix ku leeyahay waa 23 wasaaradood baa jira 23 ka wasaaradood hal wasaarad mooyaane 22 ka wasaaradood kale wasiiradu ma saxiixaan ama saxiix kuma leh voucherka ka baxay wasaaradda kama wasaa macnaheedu hal wasaarad oo kale ku leeyahay halka wasaaradda warfaafinta ayaa wasiirka musharaxiinta marba kii jooga agaasimaha guud iyo agaasimaha maamulka lacagta ay saxiixaan wasaarad kasta agaasimaha guud iyo agaasimaha maamulka lacagta saxiixa marka macnaheedu waxa weeyaan 23 ka wasaaradooda kale marka laga reebo wasaaradda warfaafinta waxa saameynta ugu badan leh iyo lacagaha loo isticmaalayo waxa weeyaan agaasimaha guud iyo agaasimaha admin finance maamulka lacagta sax waa inta waasa wasiirku marka macnaheedu waxa weeyaan markuu cusub yahay la soo magac ma ogaan karo waxa ka socda xafiiskii arrimaha lacagta iyo mooga wixii lacag baxay mooga ama kala reebo wasaaradda marka waxa macnaheedu waxa weeyaan inuu la xisaabtamo waa adkaanaysa wasiirku hadhow isaga loo qabsanaya waxaan uu sameeyay hadhow isaga loo qabsanaya wax wasaaradda ka dhacay isaga loo qabsanaya mana ogeys waxa loo xil saxiixay wixii la saxiixay wixii kale taas marka waxay fududeyn kartaa in musuqmaasuq dhaco madmadow yimaado lacagta meel khadanayo waxa kaloo jirta iyaduna guddiga qandaraasyada qaranka xeer baa sheegay xeer bay leeyihiin xeerka 28 xeer bay leeyihiin madaxweynuhu waa kii soo saaray digreetada qaabka $5,000 wax ka badan in guddiga qandaraasyada la horgeeyo waa in la hubiyaa ma hor tagtaa $5,000 wixii ka yari wixii ka badani guddiga qandaraasyada qaranka ma hor tagtaa oo iyagu ma soo ansixiyaan waa in la hubiyaa iyadana madmadow badan baa ku jira waxa kaloo jira iyaguna waxa la dhahdo advance lacag horumarina qofaa soo qoranaya lacag degdega voucher buu soo qaadanaya maran wuxuunayaa $100 meelaha horumarina loo sii daayo waa loo sii deynaya hadhow waa wax caadi oo adduunka dhaca horumarin waa la siiyaa shaqaalaha dawladda hay'adaha dawladda xitaa hay'adaha aan dawliga ahayn baa bixiya advance sahan anigoo shamarka aba hay'ad hiblaayo ka shaqeeya 4 toobro soo qabanaya berbera burco laasaanad iyo ceergaabo lacag baa la dhiibay hadhow waxa la iga sugaya laakiinse inaan de soo beelashi keenade ay ku baxay lacagta ku baxday marka imka dawladda advance laga qaado waa in hadhow marka loo xisaab celinayo voucherka caadiga loo keenayo waa in supporting document-kii oo dhan la socdaa la yiraahdo intaas hotel baa lagu dagay inta shaqaale la siiyay inta waxba lagu iibiyay waxa dhacda in la siiyo voucher qalalna caadi oo la keeno oo supporting document wadan warqadin buu soo celinaya kala oranaya 300 waan isticmaalaya maxaan ku isticmaalay maxaan ku iibiyay wax cadeyn midna ma soo raacay ma jirto dawladuna ku xidhimayso wasaaradda maaliyadda inuu cadeyn waxa soo raacay saasa loo raacinaya waxa dhacda in lacag kasto lagu dhiibo lagu soo kharash kare qasab ma isku faystaba ama adiga wax kugu go'een oo lacag kugu go'day ama adiga lacag ku soo hadhay hadii lacag ku soo hadhay waan celisay baan ku celisay hadii kugu go'dan waan soo dalbay hadii kugu go'dan soo dalbay taa lacagtaana si bixiyo khalaas ka si bixiyo rasiidadiina waa kuwan lacagta dib lagu celiyo anagu wuxuu soo celinay isku fadhidaa uu leeyahay jaagi uu soo qoray hal warqad oo voucher kii la sameeyay soo celinay soo saxma waxa kale jiray iyaduna marka miisaaniyada la fulinayo kharashyada marka madax ay lacag ka sii dhamaato madax kale iska buuxa oo aan waxba lagu qaban ee loo lacag baa looga wareejiyay isku raridda madaxda yani waxay dhigaysaa haddii isku raridda madaxda aragto waxa si shidaalka iyo
shidaalkii baa dhamaaday oo dad aad baa loo isticmaalay shidaalkii intaan la gaarin sanadka dhamaadkiisii haddii la yidhahdo waxaan ka soo qaadanaa madax xigeen hebel aan lacag ka soo qaadanaa waxaan ku shubanaa ama aan ka bixinaa lacagtaas markii hore la diyaarinaya si xun loo diyaariyo waxan dowladdeedna aad bay ugu badantay in madax la raro aad baa la raraa oo lacag aan leekayn shidaalkii baa kolka hore waa lagu yareeyay ha anu waxay la tahay haddaba in 5% un baa la raraa adduunka sax sababka lacagta ku jirta hay'adaha iyo inta kale waxay dhaadaan 1% baa la raraa ha waxa aad yar 5% baa u badan ba wax yar baa laga raraa sababka halkan waxa yani aad u wareejin loo wareejinaya waxa weeye sabab dhaal isku wareejinaya kaas waa asiye kaas kanta baa la raraa wax ka badan la raraa waa in la maamulaa madaxyada la rarayo in madaxyada la rarayo weey sax sama waxa kale oo jirta hadii hay'ad ama wasaaradii ay isticmaasho kharashkii ay loo qoondeeyay sanadka kharash ka badan waa in dib loo sameeyo miisaaniyadda oo supplementary budget waxa la raado halkii laga kabeeyay la sameeyo ha halkii laga kabeeyay waa la sameeyaa halkaas laga kabeeyaa waa baarlamaanka loo geeyaa sax baarlamaanka siiya sax laba ku sheegto ma xasuustaa xisaabkii la sameeyay laba ku sheegto sax wasaaradda madaxtooyadu waxay gashay kharash dhan 5 bilyan oo Soomaaliya shilin ay dhaaftay inta lagu talagalay waa 2015 wasaaradda supplementary budget lagu sameeyay ma jirto maahan hagala ka lacagta ay gala bixi 5 milyan ee deynteeda 5 bilyan waa 5 bilyan oo waxa u dhigmaysaa ilaa 1 milyan dollar way ka badan tahay hadaan ka badnayn ha oo 1 milyan dollar ma hawi halkee la ka lacagta waan supplementary budget sameeyay baarlamaanka laga soo saxiyo saasoma waxa kale oo jira marka miisaaniyadda la ansixiyo waa imka soo November ma taagnin November markay taaganahay hadii December la ansixiyo January February March waska qarbo dawladdu waa keed yeelata ay ka siiso kharashka hawlaha shaqo ee dawladda sidoo xeerku sheegayo qoondada xeerkan aad daaqdo 27 xeerkan qoondada aad buu sheekanaya keedka laga saarayo madaxweynuhu kharashka soo bixinayo intaan miisaaniyaddu dhaqan gelin iyo waxa la jiray marka ka shaqeyn jiray xisaabaadka lacag wasiya maahiyay hay'ad dawladeed qof shacaba oo ganacsadii sharaxan kale January ama February ayaa lacagtii loo mushubayo hay'adii dawladda gobolada ugu horeeyay gobolada macashuur ururin lagu jiro gobolada sax gobolada loo mushubayo lacagtoodii tusaalaan soo sanaag burco kale waxa kale lacagtii marka loo shubayo hay'adii dawladda deganaa gobolkaasi wax si amaahinaya ganacsato waxa ka faa'iideen magaranayno qof ganacsada amaanaya 200 300 si amaahinaya oo mushaarkoodii waxa laga sii bixinaya waxa hay'adin la sameeyay keedka laga bixiyo dadka miisaaniyadda wali dhaqan kana labadii sano ugu dambeeyay kolka hore kaydkeeda laba isticmaal jir haddana waaba la baabiyo dama jira weemka wal baabiyoomka umarayba darta keedka qaranka oo khasada dhaxay oo maran labadii waad kala garanaysaa oo lacagtiina in wasaaradda maaliyadda lagu shubayno wasaaradda maxkamada qorshan lahayn iyo siyaasadda wax kale oo jira iyaduna alaabta dawladda laga iibiyo wax laga iibiyo lacag 3 laaba gaariga 4 kun taagan hadii dawladda laga iibinayo 4 kun sheeto kun balaasine hay dawladda faa'iido marka waxa weeyaan waa musuqmaasuq cadaanta shay 10 kun balaasine marka ama ninkan gaariga iibinaya ha qaato lacagtan ama cid kale oo ku dhex jirta ha qaato dawladda lacagta hadii wax laga iibiyo lacagtii saxda ah suuqa laga iibiyo haday baabuur tahay haday stationery laga iibiyo haday spare part time kasta laga iibinayo waxa yaro $5 ayaga laga siinaya $50 sida waxa kale oo jira kharashka stationeryga mar walba soo cesha stationery qaano way baxan waraaqaha iyo khadka iyo waxa si way baxan laakiin kuraasta ma dhamaado walba Britain la soo iibinayo stable waxay sadoo sanad ka haysa kuraasada miisaska kale muddo oolaya in stationery soo cesha ma wixii raay fudud ee soo noqonaya sanad kasta wasaaradii waxa ka soo jiray stationery lacag intii ka badan kuraasta ugu jirto marka hay'adaha dawladda martan waxa ay la qaarkood kursiga 2012 la dhigay kaasay ama Britain ka xilliga la dhigay ama ku xumihay marka gasho ma sanad kasta waxa ugu jira Britain cusub kuraas cusub waa muhiim lacagaas cidda isticmaal siyaalka maraya in dadka bulshada loo sheego la weydiiyo waxa kale jirta cashuurta dawladdu ka qaado ganacsatada sahan qof ganacsada dawladdu wax ka iibiyay
markuu soo dalacnay voucherkiisa waa soo cashuurta sama صح cashuurtii ku waajibtay isaga laga jar lahaa dawladdu mudul dhigaya salahan hadii markaad ka iibso waxbad moobile dawladda oo adiga $500 suuqa aad qof caadi ka siin lahayn hadda $500 dawladda u qorto soo cashuur ka jarmayso cashuurta adiga ku gaaysa Soomaa qofkii markaa cashuurta waxay been isaga laga jarade si cashuur waxaan cashuurta loo sameeyay waxay in qofkan lacagtan waxaan u iibiyay damacaashkan uu sameeyay laga jaro dawladdu waxa ka siiyay $600 صح marka cashuurta u dhufto isaga faa'iido taagan waliba dheeraad cashuurtii uu siinayba dawladda isaga halka ma ka sameeyay adeegii dawladda wuxuu idu madax soo gali idu xisaab lacag dheeraad qaatay soo kamisi waxa kaloo jira marka cashuuraha bariga lacagta ururinayaan imika tusaan kale ku soo galeen meheradaadii macaash keen bay ku raahdeen marka macaashka bixinayso gorortun baa gelaya inta saaba dukaanka marwanaya 5 milyan kan annagu gorortun baa gelaysayo 5 milyan ma haye iyo degarashada qalba garashada marka base ma jiro standard wasaaradda kale leeyihiin maxay isticmaalayaan dukaanka maxay ku garanayaan lacagta taaleentay waska u deemeeyaan 5 milyan kan marka wada heshiis baa lagu dhameeyay heshiis ma lagu dhameeyay gorortan oo naga daayo 2 milyan baa qaayma kadib waa in xaato wax deecad oo arkaytay saddexaad waxa weeye markan amaaha iyo deymaha waxaan oo dhan laga sheekeynayo oo xeer ka sheekeynayo waa in la taaban karaa deynta jaahan marka la deyn hiblaayo ayaan ku lahaa wasaaradda hiblaayo waa in la taaban karaa guri haduu gaari waa la gaarigaasaan ku leeyahay gaariga waan arkay gurigaasaan wax ka dhisay gurigaasaan waan guriga arkay deyn iska bixi ma dawladdu deyn iska bixisa aan la arkin waxay inay dawladdu aad u baadho deynta sanad kastana deyn baa ku jirta sanadkan ugu dambeeyay marka waxa ku jirtay 3% deyna oo 260 bilyan okay mid aragtay wali dawladda oo miisaaniyadda ku dartay cashuur baaqatay cid ku baaqatay waxa lagu baaqanayn in hadii liisankaaga aad cashuur weeydo 2 sano marka tagto in 3 sano laga shumay waxa uu qad soo codsiya كان حفيزك عشورها بريقة بس هل سنة ملوثة مني واحد عشور باقتين لو ضرب عمرك صحرة تاع شو تباقت اللي هذا عشور باقتين صحرة وهذا وحسابك لقيم بتشو مركا قف كنا لقى شو معي بقى ده حرنا يوم هل سنة يودن بي مش هل سنة يودن بي شو مرونية تاسوا أنت بدنا حوج واحد مثلا إنه كنظام كي عشور أوريد هذا بقى نظام كي بحين تناول وحقا إنكو راح شرحيني haddaynu ku soo gabagabeynay intaas nidaamkii cashuur ururinta iyo cashuur bixinta oo kamid ahaa sida dawladdu u fuliso miisaaniyada maxaa kale ku xigeen hore uga sii socon karnaa waxaan soconnaa ganaxyada laga qaado shirkadaha badhow shirkad baa shidaal keentay sax gawaaridi waa wada fariistay sax dadkii baa dhibaatoodo kharash badan ku taagnay sax ganax baa laga qaaday sax dadkii ku dhibaatooyeen la siiyo Soomaa dawladda qaatay shaqaalaha wasaaradda maaliyadda la siiyay ganaaxii dadkii gaadhidu ka fariistay taasina waa mid sharciga baalmarsan deena maxaa loo siinaya ganaax dadkan aan waxba ka noqon wax qofkii gaariga wax ka noqday baa in la tiro koobo dadkii gaariga wax ka noqday la hubiyo gaariyadooda iyaga la siiyo maxaa lagu cid waay shacab qaane shanada waxa weeye qaab xisaabeedka marka budgetkii miisaaniyadii waan la ansixiyay waan la fuliyay qaab xisaabeedkii baan yareegnaa sidee loo xidhaa miisaaniyadda sidee loo xisaabiyo isku dhacda xisaab isku dhacanayna horta xisaabeedku waxa qaab aad u horeeyay waa qaababkii hindidii ingiriiska la shaqeyn jirtay ku shaqeyn jireen waxa single interest system qaabkan isticmaalno dakhligina meel ku qoray waqti gooniya 100 sano ka hor baa la isticmaali jiray meelahaas dakhligina gooni ku qoray kharashkina waqti gooniya imika tacaadiga lagu dhigto jaacaduhu way isbarbar yaalaan waa dhaweyn karay $5,000 baa soo gashay halka ka soo gashay waqti ayta dhibaato iyo halka ku baxday $5,000 baan bixiyay cid ku baxday qasida marka hal single interview forms kala isticmaalo ee lacagta lagu bixiya form kala yiraahdo taariifka iyo trade iyo waxani waa form aan warbixin badan oo tayaale gudbinayn waa formska bari horun la sameeyay oo wax badan laga bedel waxa kale oo jireeduna internal control system weyn yeeshaan hay'adda dawladda xeerkan uu waajibinaya xeerkii shaqada waxa lagu xilxito uu waajibinaya weyn yeeshaan hay'ad kasto dawladda weyn yeelataa internal control system dhab ah oo jiro shaqeynaya weyn yeelataa soo kamisi حسابات وكالة دولة وين ولا صعدة حير كبي وشيء وكالة دولة إن حسابات كودا 6 ولا صعدة وحفظ حسابات جودي وسيلة مالية دي دكاترة ولا صعدة حير كان باك شيء يعني ما قضب اللي هي فرتلادي قضب كسارة سلطانات كواسة شيء يعني
qaabka xisaabaadka loo sameeyo waxyaabo noocaas marka halka marayno xafiiska xisaabaadka guud afarta bilood sanadka koobaad saan xisaab xirkii 2019 waanu bilaabaa January 2020 oo afarta bilood oo horeeya waanu ku sameeyaa xisaab xirka la sameeyana in ka dad aragto xisaab xidhadeena la sameeyaa wax xisaab xidho la sheegayo dakhliga kharashaadka ku soo galay halkaas ku baxay bas xeerku wuxuu jideynaya jadwalka labaad xeerka dad tagto wuxuu jideynaya intaas oo document ay tahay in sameeyaan xisaabaadku balance sheetkii income statementkii cash flowgii wax wada noocaas oo ciidda ka badan waanu sameeyaa meelii lagu bixiyay qadii la siiyay in la socoto biilkii la socdaan ay ka taaj karsan wax documentkii wax kasta la socdaan shay kasta wixii lagu qabtay halkii lagu bixiyay wax cadeynaya ana cadeyn kullu statementkii adduunka la isticmaali jiray caadiga wax kale xeerku waajibinaya in la isticmaalo hababka casriga ah ee xisaabaadka habka adduunyada ma isticmaasha waan isticmaalaa waa marka habka labada dhinac ama de saddex baad doono imika qaabka la isticmaalaya halka single entry-ga ahi waqaab inta ka shaqeynay anagu lama qabsan weyn sidoo kale qaabkaas wuxuu musuqmaasuqa aad u fududeynaya maadaama la islahayn kharashkii iyo kharashku lacagta baxaya oo dakhligu dhac ku galay marka qofku wixii wuxuu sameyn karaa sidoo doono ay loo takrifay karaa sidoo ku takrifay way halka markii xisaab xirka la sameeyo documentska la sheegayo oo loo sameeyo xisaabaad sameeyo wuxuu gudbinayaa hada dhowr guud buu gudbinayaa hada dhowr guudna 6 bilood sanadka 6 bilood horeeya ayuu sameeynaya inkastoo yiraahdaan 2 bilood oo nugu yartahay hadana way sameeyaan xisaab xirkan marka uu hubiyay hada dhowr xisaab xirkan hada dhowr hubiyay waxa adduunka la raaciyaa waxa la management letter wali Somaliland xisaab xir management letter raaciy markan ma jiro management letter waxa weeye management letter muxuu ka koobnaanaya wuxuu sheegayaa waa warqad sheegaysa waxyaabihii xisaabaadku helay oo hanti dhowrku helay صح maxaa kamid ah waxa ka dhacda financial findings waxyaabihii maaliyadeed uu helay maaliyadeed khaldan waxa kamid ah in ay foojarada qaar wateen sababta document ku filnay document ka maqan yahay waxa kale oo kamid ah qaar ay kala dhiman yihiin sababta documentkooda hadii jira foojar noocaasi waxa la financial findings baa jira ay soo iskaliya waxa jira isla management control findings waxa la صح oo maamulka yani qaab dhismeedka maamul ayaa wax ka qaldan boornaya waxay ka qaldan sanaan wuxuu diyaariyaa xisaabaadku bank reconciliation maalmo baa la keenay jiray xafiiska xisaabaadka bank reconciliation kaas waa in la sameeyaa faqad haddii uu arkin la sameey waayay uu sheegay xubnaha bank reconciliation lama sameyn jirin oo looga jeedo bank reconciliation waxa weeye lacagtan bank ugu xaroonaysa haddana banka lagala baxayo ilaada xisaabaadkii oo diraya jeegagii banku wuxuu ku soo dirayaa maalin kasta lacagta lagala baxay iyo lacagta la dhigtay صح adna waana ku hubisaa lacagta dirtay ilaada lacag khad dhigtay iyo lacagtii aad tiriha lagala baxo waana isku hubisaa in isleeyin ha waan lagu hubiyaa saddexaad ay tahay auditorku inuu sameeyo waxa weeye compliance findings ku xiraado haddii tusaale ahaan kale heshiisyo ay ahayd in la fuliyo waayo صح hadii heshiisyo ay ahayd la fuliyo oo la fulin waayay wuxuu ku sheegayaa warqadda management letterka uu diri doono baarlamaanka in heshiisyo la fulin waayay ama ballanqaadadii la sameeyay la raaci waayay sanaan heshiis bank iyo dawladda dhexe wada galeen hadii dawladda dhexe fulin weyday waxaan sheegaa wala fulin waayay heshiisyadaas marka wadaba isoo sameynaya marka wuxuu soo bandhigayaa maxay isaga la tahay marka dadka xisaab xidhadeena waxay oranayaan xisaab xidhkii 2017 waxba kama helin 300 oo milyan lacag gaaraysa ama ka badan ay waxba laga helin maamul ahaan maamul ahaan kasta marka laga waa sax leeyahay boqolkiiba wax walba sax leeyahay adduunyadiina wax nagu tilmaamaysaa wadamada ugu musuqmaasuqa badan report kasta ay soo saaraan sawirka macquul ma noqon marka waxa la audit opinion waxa la jira oo yani fikirka uu ka haysto qaab dhismeedka maaliyadan iyo waxa inta dhowray oo afar ah qualified affairs-kii kuwaana lama raaciyo saahan maxaad ka aragtaa duuduub ahaan maxaad u aragtaa xisaab xirkan waana tirada maaha mid sax ama taa waa sax oo gabigiisu uu saxsan yahay khaladaad ka yar baa jira management letterkan ku sheegay ama laba kala sheegto marka waxa kale oo isla muhiim ah in isla fahanno hanti dhowrka guud iyo hanti dhowraysiga waa su'aal muhiim ah hanti dhowrka guud ayaa isagana si hanti dhowr yaa ogaanaya isaguna si fiican u shaqeyn kara
wadimka waxa jirta madaxigeen lacag badan ugu jirtay waxa ugu jirtay 1 milyan iyo 6 bilyan sanadkii dambe 6 bilyan 1 milyan iyo 400 kun dollar bay noqonaysaa meelahaas hawlaha shaqo ka mid ah hawlaha shaqo barnaamijyada hawlaha shaqo qorantay hawlaha shaqo isaga dooraya aan ku jirno nidaam xisaabiyaadkii buugaas oo saaray wakaaladaha madax bannaan yaa hanta dhowra banka hanta dhowrkiisa ma maqashooli may lama hanta dhowra ma maqan internal audit buleeyin baa la oranay internal audit buleey bas internal audit kana wax kale muhiim ma aha internal audit waa inuu diyaariyaa in hanta dhowrka guud dibadda iman doona marka inagoo gabagabadii ku jirnaa ma oran karnaa qaabkan dawladdu oo samaysan tahay iyo qaabka miisaaniyadda loo sameeyaba waa qaab fudaydinaya in wax la musuqmaasuqo waa qaab fudaydinaya in musuqmaasuq dhici karo ay tahay mar walbana uu dhici karo ay tahayna in la saxo banko kale marka leemka miisaaniyadiisii lama ogo hanti dhowrna ma leh macnaheedu waxa weeyaan qofka banka jooga lacagta banka soo galaysa wuxuu ugu tagri faraa sidii isagu u rabo sidoo doonaya haddii ilaahay ka baqana si wanaagsan buu sameyn haddii kale maanta sharci qabanaya system qabanaya ma jiro waa manasab ma jiro talaanka soo jeeda waxa kamid ah in miisaaniyaddeena laga dhigo activity based inay shaqo ka timaado haddaynu ku noqono waa charterkii ugu horreeyay kolkii ugu horreysay aad ka soo hadlaysay dee waxaa leeyahay marka koowaad waxay ku timaadaa miisaaniyaddu in la sameeyo waa inu policy jira sanadkan ma biyanu u baahannahay ma caafimaad baynu u baahannahay ma waxbarashanu u baahannahay maxaynu u baahannahay boolisiyadaas iyagoo jira dee waa inay ka jawaabaan markaa miisaaniyadda lacagteeda la yidhahdo waddan loo baahan yahay intaasaa la gelinaya biyaa loo baahan yahay intaasaa la gelinaya waa inay soo horeeyaan baahidii kalendarka miisaaniyadda ayaa ku jirtay in prioritiska mudnaanaha uu wasiirku sameeyo kordhigana golaha wasiirada mudnaanta sanadkan maxaa mudnaan yeelanaya marka ma aha un iska kordhiyo dalal halkan 6 bilyan baa iska qorantay 8 bilyan ka dhigan inagana wax badan u dhaxeeya ma jiro 10 sano ugu dambeeyay marka tagto waa page kala bedelayo miisaaniyadda page kala koobiinaya madaxigeenada marka haddii halka waxa inoo yaalaa horteena labadii buug ee ugu dambeeyay sanadka sama kii 8 kii 9 maxaa kala duwanaanshay ku jira lacagtun baa kala badan maxaa kale kala duwanaansho ku jira meelaha qaar magacyada hore in laga saarayo magacyo kale laga dhigo magacyo kale laga gasho nambarada madaxigeenada oo la bedeshay waxyaabo noocaas bay sir bedel wax qalyaale wax kale isbedel ma jiro inay dhidgareeyeen bad moodo waa isagu bedel loo sameeyay Soomaaliland oo nooca miisaaniyadeedu waa nooca talabaad waxaad isweydiinaysaa marka auditkii baad ku jirtay auditka laftiisii ayaa si audit garanaya ayaa tahay sharci ahaan in soo audit garayo talabaad waxaad dadku isweydiiyaan miisaaniyadii markii dawladdiisa ay bilaabantay maxamed xaashim wasiirka ahaa may gaarin 9 milyan oo dollar 8 milyan meelaha 8 sanadkii ugu dambeysay laga qaadan 5 bilood ka hayna 106 bay noqon aad meelaha saameynta lahayd 8 kamil saameynta lahayd waxbarashada bilaash laga dhigay shaqaalihi mushaar loo kordhiyay inta la yaani dadku way taabatay miisaaniyadu wax qabanaysaa oo qof walba mashaariic badan oo dawladdu ka tagtay oo taagnaayo qaajiyay bridge ka yarbaa kamid ah bridge ka kamid ah qof walba way taabatay miisaaniyadaas 360 milyan qofna aan taabani maxba ma tareysana 360 labadii sano ugu dambeeyay markii la isku soo geeyay maxay noqonaysaa sida ay sheegaan waliba sarfada ku sarfaa dawal lacag badan 360 dawal 700 dheeraad 700 dheeraad bilyan bay ku dhowdahay bilyan hal bilyan bay ku dhowdahay dollar hal bilyan dollar ku dhowdahay 700 iyo marka iyo dheeraadkaas milyan de wax weyn oo maanta la xusi karo lagu qabtay mashruuc 100 milyan oo la xusi kara ma jiro talabaad waxa weeye wax muhiim ah in la sameeyo hay'ad madax bannaan oo miisaaniyadda samaysa sax waa tala ahaan markii soo gabagabayno hay'ad madax bannaan oo miisaaniyadda qaranka samaysa waa in la sameeyaa xafiiskan hanti dhowrka guud waa in baarlamaanka ku diraa cid taga hanti dhowrta baarlamaanku waa inuu shirkad samaystaa shirkad intuu kiraysto waa inuu hanti dhowro si public in adduunyada la shaaciyo shirkad hanti dhowrta baarlamaanka Soomaaliland ay eegto bas wixii uu soo saaray la hanti dhowro caadi hanti dhowro la soo saaro wixii ka qadan iyo wixii ka saxsan miisaaniyaddeena lagu sameeyo lagu bayskareeyo activity halka imika lacag iska tahay lacag uu iskaga gurayo in shaqo lagu sameeyo oo la wasiiro in safar baxaysa asadka maxaa ku qorshaysan in safar gudaha in safar dibadda halka laga dhiraandiriyo habeen dhaxu u baahan yahay iyo kharashka safariis ku baxdo loo gelin lacag uu la iska gelin 500 milyan ma hal bilyan Soomaaliland shilin in la iska geliyo ma hadda talabaad
shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee deyntaasoo ku nool lacagood kala qaadanaya waxay midka lagu qaybiyo talaba saddexaad waxa weeye lacag dhiirigelin lagu jirta hay'adaha qaar dawladda markay cid la dhiirigelin la markin waxa kamid ah wasaaradda warfaafinta ma soo qoray wasaaradda warfaafinta 1 bilyan iyo 144 milyan meelaha sanmaynahay ay ku jirta cid la dhiirigelin ma jirto yaa dhiirigelin marka lacagta maxay ku jirtaa meesha talabaad maxaa lagu dhiirigeliyaa qofka ay u sameeyay ها محسو كردي يعني هذين لا قف على الرجلي محل الرجلي او انت تحس مع شباب بيرفورمانس بريسلك يعني قف والبا ugu qoro wax qabadkiisa kaas la inta soo qof wanaagsaneyd department ka inta soo qof ka wanaagsan inta soo kuwaas la rigi marka inaga ma jiraan marka ma wax qof tacayl alma tan dawsi noqdo yaan jecelahay ida jecel ma dhiirigelinaya ka dambeey ma adaan cid kale ma jecel agaasmaha ma jooga cid bu jecel agaasmaha dambeey ma doonaan cid kale jecel kuma xidhnaba wax qabad iyo qoraal wasaaradda yaala iyo sharci kuma jirna imika haddaynu dhahno hoonka hibilba abaalinaysa shaqaalaha cashuuraha beriga ee ugu wanaagsan Somaliland wax haysteen loo soo xulaya kuwa wanaagsan shaqa ahaan oo ku maamulkiisa u dhow yihiin un baa soo xulay waa ma jirto maxaa lagu qiimeeyaa shaqaalihi ma jirto waxba lagu qiimeeyaa shaqaalaha qofkii la jecel baa wax siiya kii kalena kaalkiisa isku meersanay intaanan ka bixin barnaamijka maxaad ku soo gabagabadii aad wax ku soo gabagabay laha in horta talooyin badan adoo soo jeediyo waliba wax raacin lahaa yani qaab dhismeedkan maaliyadeed ee Somaliland sida nimka loo wada ma hayeysana in ma anfacayna haday tahay bilowga ilaa dhamaadka inta ilaa wax ilaa external audit qaab yani qaab dhismeed hayeysan ma in shuruucdan marka aynu haysanaa iska okay inkastoo wax ka dhiban yihiin oo aan yaaniga ilaa keen qaar dhameystiran haddana in la dabaqo in la sameeyo intii la qoray in la hayo in la dabaqo qaab dhismeedkan miisaaniyadda loo sameeyay loo fuliyana in sax laga dhigo oo aan dee muhiimad badan ku jireen muhiimad badan ku jira barnaamijkan oo aanu kaga hadlaynay miisaaniyadda oo aanu ku falanqeynaynay oo igu martiha Sharmarka Ismaaciil Idris oo si qoto dheer uga hadlay qaabka miisaaniyadda loo sameeyo qaabka loo fuliyo iyo qaabka xisaab xidhada loo sameeyo isla markaana talooyin badan ka bixiyay waxaan ku soo gabagabeynaa intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad mahadsantahay Sharmarka barnaamijkan maamul wanaagga ama good governance la yiraahdo waa barnaamij socon doona oo noqon doona taxana wuxuuna barnaamijkan ku saleysan yahay cilmi baarid dheeraad oo aan muddo dheer soo wadnay oo qaabka dhaqaalaheeda miisaaniyadeeda siyaasadeeda iyo waxaheeda kala duwanba u shaqeeyaan